waxaan haystaa 100 saacadood oo kaliya oo aan kula kulmi karo mid ka mid ah xidigaha adduunka ugu caansan Neymar Jr oo hadda dhabarkayga jooga laakiin ha u qaadan inay fududahay Brazil oo dhan isaga ugu caansan ilaaladiisuna marnaba kama fogaadaan taas oo ka dhigaysa inaan u dhawaado waxaan macquul ahayn tirsiga saacadu uu bilaabmay waxaan joogaa dalkii kubadda cagta ee Brazil hadafkayguna waa mid qura inaan foolka fool u hor istaago Neymar laakiin sheekadu intaas oo kaliya kuma koobna muuqaalkan ma rabo inaan Neymar kaliya la kulmo waxa jira xidigo kale oo liiskayga ku jira xidigii ugu horeeyay ee liiskayga ku jiray waa Gerard Pique si diiran ayuu ii soo dhaweeyay isagoo waji furan igu qaabilay maadaama Pique iyo Neymar ay yihiin saaxiibo isku dhow isaga ah furaha kaliya ee aan u adeegsan karo inaan ku gaadho hadafkayga 5 maalmood ee soo socota Brazil waxa ka dhacaya tartan weyn oo kubadda cagta ah kaasoo Neymar lagu casuumay markii aan Pique weydiiyay inay suurtagal tahay inaan Neymar halkan ku arko wuxuu igu jawaabay waan filayaa waxaan u malaynayaa inaad heli doonto fursad aad kula kulanto laakiin sheekadu intaas kuma koobna Brazil waxay isugu yeedhay xidigihii ugu waaweynaa ee adduunka soo maray waxa la sheegay in Ronaldo Nazario uu yahay kan koobka bixinaya sidoo kalena la filayo inuu yimaado Kaká waa xidigo waaweyn oo hal meel isugu imaanaya Pique wuxuu rajeeyay nasiib wacan aniguna waxaan diyaar u ahay inaan u bareero waxa aan la kulmi doono kadib markii aan si guul ah ula kulmay ciyaaryahankii iigu horeeyay lana xaqiijiyay in saddexdii xidig ee aan sida weyn u doonayay ay iman karaan waxaan toos u abbaaray garoonka waxa ka dhacaya kulan adag oo dhex maray Brazil iyo Italy isla markii aan garoonka galayba waxaan mooday inaan Neymar gacanta ku dhigay laakiin wuxuu ahaa qof aad ugu eeg oo laga yaabo inuu walaalkii yahay wadnaha ayaa ii istaagi gaadhay nasiib wanaag waxaan isla goobtii kula kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada ugu caansan Brazil ee baraha bulshada kuwaas oo saaxiib dhow la ah Neymar mid ka mid ah ayaa ii sheegay inuu hadda wici karo Neymar waxay ii xaqiijiyeen in xidigu maanta garoonka imanayo taasina waxay iigu sii kordhisay xamaasad markii aan ka soo dhaqaaqay saaxiibadayda cusub waxaan u soo dhawaaday dhinaca garoonka si aan u daawado ciyaarta rubuc dhamaadka Brazil waa inay guulaysataa haddii ay badiyaan Neymar halkan ayaan ku sugayaa semifinalka laakiin haddii laga badiyo waa inaan meel kale ka raadiyaa intii ciyaartu socotay ayaan isbaranay Chris Gates isagu ma aha saaxiib u dhow oo kaliya balse waa madaxa kooxda Neymar ee Kings League waxaan u sharaxay hadafkayga anigoo u sheegay inaan hore ula kulmay Messi iyo Ronaldo muddo 100 saacadood gudahood ah markii uu maqlay sheekadayda wuxuu yeedhay saaxiibkii si uu noogu kala turjumo warkii aan ka maqlay wuxuu ahaa mid lama filaana wuxuu igu casuumay qaybta VIP-da si uu igu fududeeyo wax kastoo aan rabo saaxiibka koowaad ee Neymar ayaa hadda ii garab taagan hadda hal tallaabo oo qura ayaan u jiraa inaan Neymar Jr hor istaagno tani waa wali ma kaftamayo markaan idhi Neymar wuxuu ka soo geli karaa albaabka dhabarkayga ku yaala ilbidhaqsi kasta inkastoo aanan afkooda si fiican u aqoon Chris ayaa halkan igu soo dhaweeyay wuxuuna igu yidhi isoo raac si aad ula kulanto Neymar intii aan sugayay jawigu wuxuu noqday mid aad u kacsan markii Brazil ay dhalisay goolkii koowaad taasi waa war farxad leh waayo guusha Brazil waxay soo dhaweynaysaa Neymar sheekadu waxay noqotay mid ka sii xiiso badan sidii hore markii uu Chris ugu daray live streamkiisa waxaan u sheegay saacad kaliya ayaan Brazil joogaa waxaan rabaa inaan la kulmo Neymar Messi iyo Ronaldo horey ayaanu la soo kulmay waxaanan maqlay in adigu aad tahay qofka iga caawin kara markii Brazil ay gool kala dhalisayna Chris wuxuu ballan qaaday wax weyn waxaan taleefan nambarka isweydaarsanay maareeyaha Chris kadibna waan macsalaamayay rajadaydu aad ayay u sarreysaa waxaan isleeyahay xitaa haddii Brazil laga badiyo inkastoo ay 5-0 ku hogaaminayaan waxaan haynaa dadkii saxda ahaa ee noo geyn lahaa Neymar waa inaan taleefankayga codka u dheereeyaa waayo haddii uu hal wicitaani dhaafo qorshahayga oo dhan ayaa fashilmaya ciyaartoo weli socota waxay soo dhacday fariin saaxiib Chris wuxuu rabaa inaad Neymar la kulanto ilaa goormad Brazil joogaysa markaasaan farxad la gariiray waxaan joognay 50 daqiiqo iyo 45 ilbiriqsi kaliya tan iyo markii aan challenge-ga bilownay ma rumaysan kartid inaan hadda qarka u saaranahay laakiin ka hor Neymar yaa kale oo xidiga ah oo halkan jooga aan soo baadhno kadib markii aan mid u eegay dhammaan qolalka ay fadhiyeen dhalinyarada caanka ah waxaan indhaha ku dhuftay garabkii hore ee kooxda Lyon Michel Bastos waxaan ka codsaday inuu xog iga siiyo haddii uu arkay xidigaha kale ee meesha jooga laakiin nasiib darro wuxuu igu jawaabay xidiga kale ma joogaan Neymar isaguna maanta garoonka ma imaanayo Bastos wuxuu sheegay inuu Neymar imaan doono ciyaarta xigta Brazil waxay rubuc dhamaadkii ku xasuuqday Italy 15 gool sidaasna waxay ugu gudbeen semifinalka laakiin warka ugu weyn hadda ayuu soo dhacaya Neymar keligii ma imaan doono waxaan maqlay war aan rumaysan waayay waxa la sheegay in Neymar iyo Messi ay labadooduba iman karaan semifinalka Messi ma halkan ayuu imaanayaa ayaan weydiiyay anigoo rumaysan la waxay ugu jawaabeen ha Neymar ayaa saaxiibkii Messi u sheegay inuu yimaado waxaan u nimid inaan Neymar kaliya raadiyo laakiin hadda waxay muuqata
fursad aan hal mar ku wada heli karo labadii xidig ee adduunka ugu weynaa. Messi ayaan mar kale la kulmi doonaa. Wax walba waxay ku xidhan yihiin semifinalka. Waan arki doonaa wax dhaca. Aad baan u faraxsanahay, rajadeyduna cirka ayay isku shareertay. Hadda kaliya Neymar maaha, laakiin waxa liiska igu soo biiray Lionel Messi. Qorshahayga xiga waa inaan aado ciyaarta u dhaxaysa Santos iyo Palmeiras, maadaama Neymar uu hadda dhaawac yahay, lama oga meesha uu garoonka ka fadhiyo. Marka waa inaan goob adag galaa. Waxaan haystaa 77 saacadood oo kaliya. Waxaan hadda la kulmayaa mid ka mid ah saaxiibadiisa ugu dhow oo naga caawinaya inaan garoonka gudaha u galno. Ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Pedro Lopes. Xalay ayaan isbaranay, isagaana fure u ah inaan Neymar gacanta ku soo dhigo. Pedro wuxuu naga caawiyay inaan helno kaarkii aan garoonka ku dhex mari lahayn. Kaarkan aan helnay wuxuu ogolaanayaa inaan tago meel kasta oo garoonka ka mid ah. Haddii Neymar uu halkan joogo, kaarkaas ayaan u adeegsanayaa inaan ku gaadho. Pedro wuxuu igu dhiirigeliyay in kaarkan yahay habka ugu fudud ee aan ku heli karo xidiga. Waxaan xataa ka sheekaysanay muuqaal uu maanta soo dhigay barta Instagram-ka oo ay isaga iyo Neymar ka wada muuqdaan. Anoo wata kaarkii ayaan toos u abaaray dhinaca garoonka. Ma rumaysan kartid, 24 saacadood oo kaliya ayaa ka soo wareegtay. Waxaanan hadda dhex taaganahay garoonkii uu Neymar ku ciyaarayay. Haddii aanan Neymar ku helin 100 saacadood ee aan qorsheeyay, markaa waxbaa naga sii ah. Inkastoo aan aad u faraxsanaa markii aan arkay ciyaartoyda oo tunnelka ka soo baxaya, haddana maskaxdayda hal shay ayaa ku soo noqonayay. Ka waran haddii uu Neymar hadda ka soo dhex baxo? Ma garanayo meel uu ka soo geli doono. Waxaanse rabaa inuu meel iiga soo muuqdo. Laakiin haddii uu halkan joogo, Pedro ayaa noo ballan qaaday inuu noo geyn doono. Anigoo weli Neymar raadinaya, waxaan u soo dhowaaday dhinaca garoonka si aan u daawado kooxda Palmeiras oo istiyaarinaysa. Waxay ii jireen dhowr mitir oo kaliya. Hadda aan u gudubno dhinaca kooxda kale si aan u aragno iyagana. Markii aan daawaday ciyaartoydii Santos oo uu Neymar ka tirsan yahay, waxaan doonayay inaan gacan qaado oo aan dhiirigeliyo ciyaartoyda inta ay u sii socdaan qolka labiska. Mid walba waxaan u rajaynayay guul. Bal qiyaas haddii uu Neymar ciyaari lahaa maanta, waxaan isleeyahay fursad dahab ah ayaynu ahaan lahayd. Neymar weli wuu maqnaa, laakiin ciyaartii ayaa hadda bilaabanaysa. Waxaan fadhiistay goolka dhabarkiisa, waana meesha ugu fiican ee aad garoonka oo dhan wax ka arki karto. Weli Neymar gacanta kuma soo dhigin, laakiin fursad kale ayaa noo dhiman. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dhihi karaa tani waa mid ka mid ah waayo-aragnimadaydii ugu cajiibsanaa ee aan abid soo maro dhanka kubadda cagta. Inaan garoon dhexdiisa ka daawado ciyaar ka dhacaysa dalka Brazil waa wax cajiib ah. Jawiguna wuxuu sii noqday mid aad u kacsan markii Palmeiras ay dhalisay goolkii koowaad. Waxaa ka sii darnaa markii aan dhowr mitir oo kaliya u jirsaday ciyaartoyda ay Neymar isku kooxda yihiin. Maalin kasta ayay Neymar la tababartaan. Xataa mar waxa jirtay aan isku bedelay wiilasha yaryar ee kubadda soo qabta. Weli indhahaygumay qaban Neymar meel kasta oo aan garoonka ka eegay. Markii ay ciyaartu dhammaatay, waxaan u cararay dhanka tunnelka. Waxaan iska rib istaagnay Pedro si uu u salaamo ciyaartoyda. Muxuu Neymar u iman waayay ayaan weydiiyey. Maanta ma iman, laakiin laga yaabaa inuu berrito yimaado ayuu igu jawaabay isagoo qoslaya. Hadda waxay hadhay 50 saacadood oo kaliya. Caawa Brazil waxay ciyaaraysaa semifinalka. Qof kastana wuxuu ii xaqiijiyay inuu Neymar iman doono. Waxa la sheegay inuu Neymar dhabarkayga fadhiisan doono. Runta haddii aan idin sheego, wadnaha ayaa iyara gariiraya. Si aan u daawado semifinalka koowaad, waxaan fadhiistay meel ku dhow halyeega Chile Arturo Vidal. Isla waqtigaas, waxaan meel fog ka arkay saaxiibkay Pedro. Wuxuu galay qaybta loo qoondeeyay martida khaaska ah. Waa halka la sheegay inuu Neymar imaanayo. Malaha hadda wuu soo socdaa oo jidka ayuu ku soo jiraa. Kadib markii aan daawaday Chile oo u soo gudubtay finalka, waxaan mar kale iska hornimid Chris Gates. Waa saaxiibka Neymar ee aan isbaranay habeenkii koowaad. War weyn ayuu ii siday. Neymar finalka ayuu imaanaya ayuu igu yidhi. Khubaal ayaan weydiiyey, isaguna wuu ii xaqiijiyey. Laakiin shardi ayaa jira. Waa in Brazil ay caawa guulaysato si ay finalka u tagto. Haddaba caawa aniguna waxaan ahay reer Brazil. Chris wuxuu sheegay in Neymar uusan caawa imaanayn, taasoo ka dhigan in Messi uusan isna imaan doonin. Wax walba waxay ku xidhan yihiin ciyaartan. Haddii Brazil ay final gaadhi weydo, riyadii kulanka Neymar halkan ayay ku dhammaanaysaa. Nasiib wanaag, Brazil ayaa ciyaarta ku bilowday weerar kulul, waxayna dhalisay goolkii koowaad. Mexico si dhib yar iskuma dhiibin. Ciyaartuna waxay noqotay mid goolal badan. Brazil waxay heshay penalty, laakiin ciyaaryahaankii laaday ayaa khasaariyey. Taas waxay ii ahayd war naxdin leh. Si kastaba, Brazil cadaadiska ma joojin. Wax yar kadibna goolkii labaad ayay shabaqa ku hubsadeen. Farxadaydu may raagin. Mexico ayaa iyaguna helay rigoore, laakiin si la yaab leh ayay u khasaariyeen. Qaybtii labaad markii la isku soo laabtay, Mexico ayaa dardar la soo baxday, waxayna dhalisay gool qurux badan. Cadaadiskii ayay sii kordhiyeen ilaa ay mar kale rigoore heleen. Markanna mabay khasaarin. Xaaladdu way igu adkaatay. Si Brazil ayaa soo rogaal celisay. Gool kale ayay dhalisay.
ciyaar wadne xanuun badan kadib Brazil waxay dhalisay 2 gool oo kale kuwaas oo u xaqiijiyay inay finalka u gudbaan. Hadda rajadii la kulanka Neymar weli way nooshahay. Finalka ayaan isku arki doonaa 3 maalmood oo rajo iyo quus isugu jira kadib iyo maalin afraad oo aan jirin wax ciyaar ah. Waxaan hadda taaganahay finalka. Waa markii ugu horeysay ee aan Neymar Jr indhahayga ku arki doono. Waxay hadhay 7 saacadood oo kaliya waxaanan garoonka kula kulmay Pedro. Waxaanan weydiiyay su'aashii nolosha iyo geerida u dhaxaysay. Ma u malaynaysaa in ninkii aan sugaynay uu caawa imaanayo? Tani waa fursadeedii ugu dambeysay ayaan ku wadi Pedro. Haddii uusan imaan muuqaalkaygu ma dhamaystirmayo waayo 1 habeenimo ayaan dalka ka duulayaa. Pedro wuu qoslay wuxuuna igu jawaabay waan ku caawin doonaa. Waxaan ku rajaynayaa nasiib wanaagsan. Inkastoo hadalkiisu uusan u muuqan mid 100% hubaal ah, haddana rajadu way ii muuqataa. Fursad weyn ayaan helay caawa. Waxaan ka qayb galayaa ciyaar loo qabtay dadka caanka ku ah baraha bulshada taasoo ka dhacaysa isla garoonka dhexdiisa. Qaar badan oo ka mid ah xidigaha aan raadinayay ayaan wada ciyaaraynaa. Waxaana ku jira halyeeyada Brazil ee Roberto iyo Maicon. Anigoo garoonka dhexsooda ayaan Maicon waxaan ku wadi saaxiib si tartiib ah noola ciyaarta maadaama uu yahay halyeey adag. Intii aan isdiyaarinayay waxaan fursad u helay inaan si foolka fool ah u salaamo Roberto. Waxaan u sheegay muddo dheer inaan sugayay la kulankiisa. Kadib markii aan la kulmay xidiga kale oo liiskayga ka mid ahaa, waxay hadhay 3dii ugu waaweynaa oo uu ku jiro mid ka mid ah kuwa ugu fiican taariikhda, Ronaldo Nazario. Waxa la gaaray waqtigii aan 40,000 oo taageerayaal ah hortooda ku ciyaari lahayn. Waxaan islahaa Neymar malaha hadda ayuu daawanayaa, markaa waa inaan indhihiisa soo jiitaa. Sidii aan safka ugu jiray ayaa Ronaldo Nazario tunnelka ka soo muuqday. Tani waa fursadeedii ugu fiicnayd. Inkastoo dad badan ku soo xoomeen, haddana boos ayaan ka dhaxalay. Waan iskacan qaadnay. Waxaan la kulmay Ronaldo Nazario. Riyadii carruurnimadayda ayaa halkan ku rumowday. Warka kale wuxuu ahaa in Kaka aanu caawa imanayn. Markaa dadaalkayga oo dhan waxaan ku soo ururiyay Neymar. Ciyaartii ayaa bilaabantay. Aniguna kursiga kaydka ayaan fadhiyay. Intii aan halkaas fadhiyay, waxaan arkay wixii aan filayay. Neymar Jr ayaa hadda garoonka soo galay. Indhahayguna isaga ayay qabteen. Waxay yeedhay saaxiibkay Chris. Hadda waa daqiiqadii aan muddada dheer sugaynay. Markii aan saacadda eegay, waxay maraysay 96 saacadood iyo ka badan. Safar dheer oo 100 saacadood ku dhow oo dhibaato iyo farxadba lahaa kadib, hadda ayaan gacanta ku hayaa hadafkaygii. Ugu dambayn, Neymar ayaa hortayda taagan. Waxaan u sheegay inaan 100 saacadood oo rafaad ah u soo maray si aan u arko. Haddana ay 4 saacadood oo qura iga dhiban yihiin waqtigii aan dalka ka bixi lahaa. Wuu qoslay isagoo igu yidhi waqtigii ugu dambeeyay ayaad iga soo gaadhay. Intaas kadib waxaan hordhigay su'aal ah imise layka haddii uu muuqaalkan helo ayaad mid ka mid ah taageerayaasha fursad u siinaysaa inuu kula kulmo. Wuxuu igu yidhi 1 milyan oo layka.